mudanayaal iyo marwooyin miisaaniyaddani waxay kuwii hore kaga duwan tahay annagoo raacnay habraaca uu dhigaayo nidaamka dib u habaynta maaliyadda ee loo yaqaano BFM-ka kaasoo ina faraya inaynu maro 7 marxaladood amba qaadno 7 tallaabo oo ay ka mid yihiin 1 diyaarinta xaashida aragtida dhaqaalaha amba budget outlook af ingiriisiga mudnaansiinta maaliyadda amba expenditure priorities xaaladda guud ee ku xeeran miisaaniyadda iyo odoroska dakhliga 3 sanadood ee soo socda taasoo loo yaqaano macroeconomic fiscal framework iyo wargelinta xubnaha baarlamaanka ee ku jira guddida dhaqaalaha la fadhiisiga iyo kala hadalka hay-adaha miisaaniyadda ku jira midooda miisaaniyaddeeda u gudbinta miisaaniyadda golaha wasiirada iyo ugu dambeyn gudbinta miisaaniyadda golaha wakiilada 7 marxaladood ayaanu soo maray mudanayaal iyo marwooyin 6 hore waa soo dhammaysanay maanta waxaynu u fadhinaa ka ugu dambeeya haddii markaan kaga bilaabo guud marka xaaladda dhaqaale maadaama miisaaniyaddani waxay ku fadhidaa oo ka bilaabmaysa xaaladdeena dhaqaale siday tahay 5 sanadood ee u dambeeyey ee u dhexeeyey 2013 2017 isku celcelin xawliga koritaanka dhaqaalaheenu wuxuu ahaa 2%. laakiin sanadadu isuma mid ahayna may sinayn sanadkii 2004 xawliga koritaanku wuxuu ahaa 4.6 buu ahaa 1%, halka sanadkii 2017 uu hoos u dhacay 1%. hoos u dhac uu keenay 1%. taas waxaa keenay abaarihii dabada dheeraa ee xoolaheenu ay ku leedeen iyo xayiraadii lagu soo rogay xoolihii loo jiray. laakiin 2 sanadood u dambeeyey 2018 waxaa jiray kasoo kabasho hoos u dhicii dhaqaale ee 2017. haddaan sila dul taago xagga sicir bararka sicir bararka 6 sanadood u dambeeyey aynu soo dhaafnay marxaladuu soo marmaray. haddii aan soo qaado sicir bararka bisha September ee sanadkii 2017 bishii September 2017 wuxuu ahaa qiyaastii 20% sicir bararka marayay. isla bisha sanadkii ka dambeeyay 2018 wuxuu hoos u soo dhacay sicir bararku 9.6%. laakiin sanadkan inuu ku jiro bishii September wuxuu hoos ugu sii dhacay hoos ugu sii 4% kaliya. gaarintii arrinta aad iyo aad baynu ugu guulaysan. sicir bararka waxaa sababay sicir bararka khaasatan faraha badan leh 2% ahaa ee bishii September 2017 aynu diiwaankeena ka register gareynay waxa ugu wanaagsanaa 4 sababood. xoolihii oo inaga baxay dhaqaalaheenu waa dhaqaale ku salaysan xoolaha. markii xooluhu dad qabaana dhaqaalaheenu wuu wanaagsan yahay. marka xoolaheenu dhibaato ka soo gudbanaatay abaarna dhaqaalaheenu hoos u dhacay. marka abaartii dheereed xoolaha ay ku leedeen waa sabab kale waxay joojintii xoolaha u dhoofi jiray Suudiga. doorashada lafteedu qayb ka ahayd iyo siyaasad dabacsan oo lagu maamulo lacag. sarifka laftiisa waxaa ku yimid isbedel 2015 halka doolar waxaa lagu sarifi jiray 7,564 Somaliland shilin. laakiin 2018 wuxuu gaaray sarifku 10,189 buu gaaray. taasoo macnaheedu yahay inuu ku yimid hoos u dhac 5.30% qiimaha lacagteeda. waxaana keenay xoolihii oo doolarka laga soo geli jiray oo istaagay iyo isticmaalka shilinka oo yaraaday. laakiin kadib markii bangiga dhexe uu tallaabooyin adag ka qaaday arrimahaas qiimihii shilinku kor buu soo kacay. iminkana wuxuu marayaa halkii doolar wuxuu marayaa 8,730 qiyaastii. weli ayuu dhaqaalihii maraya haddana sida ku taago xoolo dhoofis
حق دوميست حوالها waxaa weli ina saaran xayiraadii lagu soo rogay suuqyada taasoo la inaga maqaalin xoolihii dhoofay 2018 waxay ahaayeen kaliya boqolkiiba 40 xoolihii dhoofay 2015 ka farq weyn baa u dhaxeeya laakiin sanadkan waxa uu daway qabashadii jirto sanadkan 10 bilood ugu horeeyay January ilaa iyo October xoolaha laga dhoofay waxa ay 1 milyan 560,000 iyo 7 ay ahaayeen marka loo eego sanadkii hore sanadkii laga dhoofay 12 bilood waxa ka badan wixii sanadkan laga dhoofay 10 bilood ugu horeeyay haddana sida dadkan xaaladda ganacsiga iyo laftigeeda waxaanu soo saaro iyo waxaanu dhoofino aad bay u kala yihiin runtii dadkii bilood ee sanadkan ugu horeeyay waxaa dibadda inooga yimid waxay ka badnaayeen inagu aynu dhoofinay afarjibaad runtii waxa weeye shilinkeena qiimihiisa ma ilaalin karo inta xaaladdu sidaas way mardaa waxba dhoofinayna shilinkaaga loo baahnaan maayo aduu dowladda xusaysaa dowladda adu baahda dabcan dowladda u qaali garoobi marka furaha ilaalinta qiimaha shilinkeena runtii wuxuu noqonayaa inaynu wax soo saarno qiimo ahaan haddaynu iska fadhino wixii aynu dhoofinay iyo wixii aynu soo dhoofsanay waxay kala badnaayeen 205 milyan lixdaa bilood ugu horreeyo keliya ayaa ganacsigeedu wuxuu ku jiray deficit gaadhay ilaa 205 milyan buu ku jiray haddii markaan u gudbo qaybta miisaaniyadda intaas waxay ka dhaqaalaha warbixintii dhaqaalaha waxaan u gudbayaa bal miisaaniyaddii 2019 bal siday xaalkeedu yahay haddii aynu qiimayno dakhligii inoo soo xirooday 10 bilood ee ugu horreeyay sanadkaas waxaa ku jiraa bishii 11 markaa wuxuu baan haynaa xog dhammaystiran ilaa iyo bishii October sanadka wuxuu noqonayaa lacagteena bishii inoo soo xirooday sidan ayay noqonayaan 10 bilood hore waxay noo soo xirooday 1 trilyan 480 bilyan miisaaniyaddeenu sida ku qoray waxay inoo soo xiroodaan 1 trilyan 480 bilyan marka runtii waa tirooyin aad iyo aad isugu dhow faraqa u dhexeeya waxa weeye oo keliya waa 0.3% keliya marka waa ku guulaysan guud ahaan waxay noo soo xirooday waxaan ku talagalay boqolkiiba 9.97 way noo soo xirooday marka loo eego lacagta inoo soo xirootay sanadkii hore ee 2018 waxay ka badan tahay boqolkiiba 6 ayay ka badan lacagta inoo soo xirootay ee aynu dadka ka soo xiroonay boqolkiiba 8 waxay ka timi kastamyada boqolkiiba 22 oo keliya ayaa ka yimi cashuurta beriga boqolkiiba 10 wax ka yimaadeen meelo kale ka yimaadeen waa tafsiiraad iyo fiis kale oo qaataaday weyn marka xagga dakhliga runtii way ku guulaysay waayo intii aynu qorshaysanay ee noo qoondaysnay inay noo soo xirooto 10 bilood hore ayay noo soo xirooto sidoo kale waxaan u baahan inaynu isqiimayno kharashka ila miisaaniyad baa u baahan si dakhliga kharash leh dakhliga waan ka baxnay kharashka iyo miisaaniyadda 10 bilood hore waxaan kharash gareynay ama ka baxay sanadda 1 trilyan 480 waxay ahayd maadaama miisaaniyaddu ay isla tahay inaynu inoo kharash gareyno 1 trilyan 480 inta runtii kharash gareynay waxay ka tahay intii aan ku talagalnay boqolkiiba 5 marka boqolkiiba 5 keliya ayaan naga bixin talagalkeena intaas waxa weeye waa dakhligii kharash miisaaniyadii kale hore ku ansixisay waxay ahayd mashaariic bay ahayd miisaaniyadda waxaa ku jiray 48 mashruuc baa ku jiray qorshaha loogu talagalna waxay inaan mashaariicda gelino lacag dhan 288 bilyan ayay ahayd 10 bilood ugu horreeyay lacagtaas waxaan kharash gareynay
قرينا بقول كي بسديد يتضباط من خرج قرينا وحكريون أنا قبل كان بقول كي ولا بيا ضباط يعني صوبت كان تي بقول كي ولا يلا تكر سكنتين إنه على نوع حوي لا ينفع عادة وحينو هذه المشاريع اللي قصحوا وحي كتم بيا في جولاي تحت الدولار هو ولا حياة التخليجين اللي تحت الدولار هو يجري وكيري اللي تحت الدولار كمان فكان أصبح كان إن وليد لبيا ضباط عينو حدين وليد لبيا ضباط كان وحكم كذا لعقت دور الشرع ويوزع كان يصندوق إلى الإيراد وهو ترى قري إنه كابو حكم مثلا هرمك العالو هذا كاسو اسمه وليد بحن فكان أنت سيكون تكاد لبدا لجنب ويو كنتي أنت عم بحن يمكن نوع نسمع وخير وقول كذا طبيعة القياس أنت سوحوي وميزانيتي واستبتاعي أما قيمتي ميزانية لبدا كنا سجال يتوانك وحنودي بياين كميزانية لبدا كنا يلواتنك سنسمي ما نقول المدن يعني مرونين ميزانية لنا لبدا كنا يلواتنك وحكا كونت يصير صوصا ميزانية الدولة الدحاء وحوية ولا بالتريليون يبقي أفرت بليون تاسو دير في كل غرة لابد يكون يستغل يتمنى إلا الشن يتمنى بقول كيف الشن يتمنى هي ده عمل حقنا ميزانية الدولة وحوية سنة كم صوص على لابد يكون يلباتنها ولا بقول يلبي أفرت بليون يبقي يصد المليون بقول يتلبي سجاشن يستغل بقول يتلبي طبعا دولة ده حقوسه وصدق بقول يلحي لباتن بليون تطبق بقول يستيل يأخذ المليون شن بقول أفريد لباتن يوم بقول يقول يستيتن صندوق هرمرة السماء إنجليز كانوا حكميني شيء بديهين وح لو درسيا يسوون إنه نقضوا أفريو تطبق مليون تطبق بقول يأفريد لحد مليون ستة بقول يقول كنتم كن إنه نقضوا مشاريع ده بنجي الدنيا ده النصامرة waxay shuu waxa weeyeen noqdaan ama ku tala galbo 5 bilyan 6 boqol iyo 5 milyan iyo 700 kun mashaariicda KPLG-ga iyaguna waxa weey waa 15 bilyan 949 milyan 367 milyan kun sorry isugeyn miisaaniyadda qaranka 2020 waxa weeye ولبات تريليون تدبر بقولي كوبي كنتم بليون سدح بقولي ألف مليون سدح بقولي سديت كون يو سدية سجاش تاسو كبران تيكال هره بقول كيبا سدية طبعا هدينا سويدينو تخليقات ديرات كأنه ودرسينو سنة قصص على لبض كونيا لباتنك حجيبو كيمانيا بحوي وحكيمانيا إلى هنصاص عشورتا إيبك وكو وكلو كيمانيا نكو رنتي دوننا نسب هذا الله قاعد عشورتا معاشك يا عشورتا كيروين كبريه ويمكن رنتي هلا ولا قاعدين وحكلو يدنا تريسا إن صرفك رسمك وبضاعتها قار لو قيمة يلحقونه كليه إن كر لو قاعد لا تطبقهم أنو كدقنو حاجة صرف وحرجينا إن كرو قادنو بحنتها عشورها جودهان ببا ينا إنه يرينو عشورها ينقلوا ما كتربانك عشورها ينقلوا ما كتربانك ميزانية الله بدو كونيو لباتون waxay ku fadhidaa siyaasad bay ku fadhidaa miisaaniyadu waxay ku fadhidaa siyaasad bay ku fadhidaa siyaasaddaas waa laba qaybood qaybna waxa la yiraahdaa fiscal policy ama siyaasadda maaliyadda qaybna waa monetary policy ama siyaasadda lacagta labadaas siyaasadood bay ku fadhidaa marka siyaasadda maaliyadda miisaaniyaddan sanad soo socota ku fadhidaa waxa weeye in la isu dheeli tiro miisaaniyad in la isu dheeli tiro waa inaan isticmaalin wax ka badan wixii aan ku tala galay inayna soo galaan iyo in aynu ku salayno odoroska dakhliga sanadka soo socda xaqiiqda dakhliga 2019 sanadkan ku jiro yaani ku salaysnaanin maalin awaalka miisaaniyadeennii hore ee 2019 sidoo kale waxaan jecelahay